عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. On the authority of Abdullah ibn Umar, may Allah be pleased with him, who said, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, took me by the shoulder and said, be in this world as though you were a stranger or a wayfarer. And Ibn Umar, may Allah be pleased with him, used to say, in the evening do not expect to live until the morning, and in the morning do not expect to live until the evening. Take advantage of your health before times of sickness, and take advantage of your life before your death. Narrated by Al-Bukhari. waxaa laga wariyey ibnu cumar eebbe ha ka raali noqdee labadoodaba inuu yidhi, rasuulku sallallahu calayhi wasallam ayaa garbaha iga qabtay oo yidhi, adduunyada u joog sidii adigoo shisheeye adduunka shisheeye ka ah ama qof socdaale ah. ibnu cumar allaha ka raali noqdee labadoodaba wuxuu odhan jiray, galab haddaad gaadhid ha sugin inaad noolal ku gaadhid subaxda. subax haddaad gaadhidna ha sugin inaad noolal ku gaadhid galabta. caafimaadkaaga ka qaado wax ku anfaca maalintaad cudur qabto, noloshaadaadana ka qaado wax ku anfaca markaad dhimato. waxaa wariyey al-Bukhaari.